السلام الله عليكم الكستو دوني دكا جوجتان ولكن درس حسن محمد بيج كايغا داونسا waa درس قصو بيج official sidoo kale waxaad igala socon kartaa kanaalkayga YouTube-ka ee درس قصو channel official qisadeena maanta waxaan ku horeysiinaynaa taxsi aan u dirayno bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay dunida ka joogaan qaraxii ka dhacay Hotel Elias iyo weerarkii aadka u baanaa ee shacabka Soomaaliyeed lagu xasuuqay dhamaanteen waxaanu leenahay Allah u naxariisto intii dhimatay inta noolna Allah ha caafiyo oo ha ka dulqaado dhaawacyada iyo dhibaatooyinka ka soo gaaray weerarka kan inta kaga nimaadno taxsida waxaan maanta aan idin soo diyaariyay ama aan ka hadli doonaa qiso wiil dhar ku gadi jiray meel ama tukaan uu ka shaqayn jiray kaasoo la kulmay nin aad u duruufaysan oo meel barafa dhibaato ay ku haysato dharna aan haysan muuqaaladan oo kale si aan u soo badiyo fadlan igu dhiirigeli oo page-kayga like saar sidoo kalena qaybta YouTube-ka subscribe saaro gambaleelkana furo waayo waxa ka caawin kartaa si aad ula socotid muuqaaladan soo geliyo mahadsanid qisada maanta waxay ku bilaamaysaa sida tan inaan ka dhalinyarada waxa uu joogaa tukaankan oo waxa uu gadaa dharka inkastuuna lahayn laakiin waa shaqaale ka shaqeeya tukaankan marka uu shaqada dhameeyo hawshiisana uu guto waxa uu baxaa bannaanka si uu soo qaato hawo yar maadaama xilaqadada la gaadho isaga oo bannaanka u soo baxay oo iska buraadla ayaa waxa uu arkayaa nin dhibaataysan oo ku sugan meel aad u qabow oo dhaxanta iyo barafka dhacaya aan la soo koobi karin kaasoo aana waxba xidhnayn oo dhar la'aan ay haysato markaas ayuu ku odhanayaa maxaa meesha ku dhigay adeero oo sidan kaa dhigay maanad haysan dhar iyo waxyaabo markastana xaggan ayaan kugu soo mari jiray oo waxaan ku moodi jiray in aad meeshan yara fadhiisatid may malihi cidna iima joogto dharna ma haysto qabowgan ayaan iska joogaa runtii ninkii dhallinyaradahaa dareen ayaa galay ninkan aadka u weyn ee haddana hoyga iyo dharka aana waxba haysan waxuuna uga sheekaynayaa ina uu muddo badan ku noolaa dariiqyada uuna seexan jiray laamiyada kaasoona cidna gargaar ka helin markii dambe ninkii dhallinyaradahaa waxa uu ku dhiiraday ina uu balkaxeeyo uuna geeyo dukaankii uu dharka ka gadi jiray inkastuuna iska lahayn haddana wuxuu yidhi bal wixii aad ku caawin karaysid ku caawi oo kaxee odaygan markaas ayuu wuxuu ku sii wareystay dhexda kaasoo uu ku weydiiyey inuu xaas iyo ciyaal leeyahay kaasoo sheegay inuuna wax xaasa iyo ciyaala lahayn nasiib wanaag waxa uu keenay dukaankii si uu ugu qiyaaso dharka isaga u qalma ninkan dhallinyarada meesha ma laha laakiin waxa uu ku fikiray in mushaarkiisa laga goosto maadaama ninkani uu danyar yahay laakiin meesha waxaa jooga ninka meesha iska leh kaasoo dhagaysanaya wararka ay isweydaarsanayaan inankan dhallinyarada iyo ninkan ay duruufta aadka u adag ka muuqato kaasoo uu weydiinayo uu leeyahay wax ma cuntay may ayuu yidhi waxba ma cunin markii loo labisay lagana dhigay maasha allah waxa uu weydiiyey ina uu wax cunay ama xilligii cunto ugu dambaysay taasoo uu sheegay inay shalay cunto ugu dambaysay runtii ninka meesha iska leh xataa wuu dhegaysanayaa wararkan ay isweydaarsanayaan marka uu dhegaystay dhibaatada aadka u daran ee ku lamaan ninkan ayuu markii dambe kaxeeyey wuxuuna u kaxeeyey meel wax laga cuno si uu bal wax uga cuno naftiisuna ay u soo noqoto maadaama uu sheegay inay shalay cunto ugu dambaysay waayo dad badan ayaa jira oo ku duruufaysan laamiyada hase ahaatee dadka kale intay eegaan ay iska dhaafaan ayna waxba u qaban mana dareemayaan inuu qofkaasi wax cunay iyo in kale laakiin waxay ka wataan hawshooda oo way iska socdaan hadda sidaan wada arkayno waxa ay joogaan makhaayaddan oo cunto uu ka cunay ajadii aadka u darnaydna ay kaga hadhay
ninkani waxba ma awoodo oo inuu wax siiyo ma awoodo laakiin laabta ayuu geliyey oo kadib markuu ku soo noqday meeshii ayuu sheefku dhahay waxaad qabatay wax wanaagsan weli dunida ma arag nin dhalinyaro ah oo bulshada sidaa u caawiya waxaana tahay qof wanaagsan maanta laga bilaabo mishaarkaaga waa lagu kordhiyey oo meesha shaqaale kama tihid ee waxaad u maamushaa sidii wax aad leedahay kale taasoo sababaysa caawinta uu qof caawiyo beddelkiisa inuu ilaahay qofka wax wanaagsan siiyo fadlan caawi inta dhiban si ilaahay ku caawiyo muuqaalkan inta ayaanu ku soo afmeeri doonaa qisadani hadday tahay mid dareenkaaga taawatay fadlan share dheh oo la wadaag asxaabtaada si ay ummadda dhibaataysan ugu gargaaraan inuun wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu